wadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee warbaahinta dawladda Puntland qodobada wararka iyaga maanta ugu doorka roona waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Rome kula kulmay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte madaxweynaha ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga kaalinta uu dalkiisu ka qaatay dawlad dhisidda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada maamulka iyo ciidanka isagoo tilmaamay in kaalintaas oo kale ay haatan ka filanayaan madaxda dalka Talyaaniga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa si wada jir u bogaadiyay xiriirka soo jireenka ee ku saleysan saaxiibtinimada iyo danwadaaga ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booriyay dawladda Talyaaniga inay ku dhiirigeliso ganacsatada iyo shirkadaha gaarka ah loo leeyahay ee Talyaaniga inay maal gashadaan Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay hindisaha dawladda Soomaaliya ee maal gashadayaasha Talyaaniga si ay ganacsatada Talyaanigu u maal gashadaan Soomaaliya magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa lagu qabtay xuska maalinta dhallaanka adduunka munaasabad ka dhacday howlka shirarka ee wasaaradda haweenka waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska madax ka tirsan hay'adda UNICEF qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah carruurta wax ka barata dugsiyada hoose ee magaalada Garowe wasiiradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee Puntland Maryan Axmed Cali oo munaasabadda furtay ayaa hambalyo u dirtay carruurta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyadoo dhanka kala sheegtay inay lagama maarmaan tahay in carruurta Soomaaliyeed ay helaan xuquuqahooda asaasiga ah maalinta caalamiga ah ee dhallaanka ayaa sanad kasta bisha November 22keeda laga xusaa guud ahaan caalamka qaramada midoobay ayaa fadhi ay ku yeesheen bishii December 14keedii 1954 ayay ku meel mariyeen in wadamada caalamka oo dhan ay maalinta carruurta u aqoonsadaan 20 November gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay xal u helidda mushkiladaha adduunka oo lagu qabtay magaalada Luxor ee dalka Indonesia gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Baasha Yuusuf Axmed ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay xal u helidda mushkiladaha dunida sida argagixisada barakaca dagaalada iyo arrimaha hubka nukliyeerka kulankan ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxaa ku wehelinayay garsoorayaal maxkamadda ka tirsan iyo mas'uuliyiin kale inta uu socdo kulankan ayaa waxaa aad loogu falanqeyn doonaa sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha dunida ka taagan oo ay ugu waaweyn yihiin argagixisada barakaca dagaalada iyo arrimaha hubka nukliyeerka hay-adda Save the Children waxay sheegtay in 84,000 oo carruurta reer Yemeniyeed ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay halis ugu jiraan inay u dhintaan nafaqa darro baahsan bishii Oktoobar qaramada midoobay ayaa ka digtay in 14 milyan oo carruurta Yemen ah ay u dhintaan gaajo haddii aysan helin kaalmo degdeg ah qaramada midoobay waxa ay wada hadallo xal loogu raadinayo dagaalka muddada 3 sano ah ka soconaya dalkaasi kaas oo sababay xaalad bini'aadantinimo tii ugu xumeyd abid waxaa sii kordhayay hardanka tan iyo sanadkii 2015 markaasi oo isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudigu ay bilaabeen duqeyn ka dhan ah xuutiyiinta oo ku qasbay madaxweyne Cabdirabbi Mansuur al-Haadi in uu dalka ka baxo waxaa adag in la xadido dhimashada sababo la xiriira iyadoo ay meesha ka baxeen kala bar goobihii caafimaadka ee dalka lagula tacaali lahaa sida ay sheegeen shaqaalaha gargaarka Afghanistan 50 qof ayaa ku dhintay weerar la beegsaday xilli lagu guda jiray xuska dhalashada nabigeena nabadgelyada naxariiso korkiisa haate weerarkan ayaa ka dhacay hool weyn oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kaabul oo ay ku sugnaayeen boqolaal culamaa u diin ah iyo shacab kale oo ka qayb galayay xaflad lagu xusayay dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyada naxariiso korkiisa haate
ugu yaraan 50 qof ayaa la xaqiijiyay inay qaraxa ku dhinteen wuxuuna dhaawacu soo gaaray in ka badan 70 qof oo kale. qaraxa ayaa dhacay xilli xafladda la furayay oo la akhrinayay aayadaha quraanka. ilaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay inay ka dambeysay weerarkan. kooxda Taliban ayaa iyadu baraheeda bulshada ku shaacisay cambaareynta weerarkan oo ay iska fogeeyeen. daawadayaal guud ahaan intaasaan kusoo gabagabeynayaa warkii koobnaa ee aad kala socoteen warbaahinta dowladda Puntland. warka waxaa idinla socodsiinaya anigu Jacfar Macalin Maxamed. inta aan kan mid lamida ku kulmi doono. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.